Bismillah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan ardayda iyo asxaabta ku xiran kanaalka Baro Luqad Academy mar kale isku soo noqod wacan oo wanaagsan. Maanta waxaan inoo wadaa cashar aad iyo aad u faa'iido badan. Ciwaanka casharku waxa weeyaan Learn 24 different English words. Baro 24 eray oo English oo kala duwan. balse kor intaynan u guda galin casharkeena fadlan haddii aad ku cusubtaa kanaalka oo aadan hore inooga mid ahayn fadlan ku soo dhawo kanaalka oo naga mid noqo si aad nooga mid noqotidna fadlan taawac calaamada guduudka ee subscribe badhanka sidoo kalena gambaleelka furo si muuqaal walba aynu soo dhigno oo kugu soo dhaco sidoo kale muuqaalkana dhammayso like-taadana waa inoo dhiirigelin wixii talo iyo tusaale aad qabtidna qaybta hoose ee commentiga inoogu la wadaag waa tahay mahadsanidin markana waxaanu guda galaynaa casharkeena sidaan hore kuu sheegayba ciwaanka casharku waxa weeyaan waa Learn 24 different English words. Baro 24 eray oo English oo kala duwan. Waa tahay erayadeena aan u guda galno marka haddaan horta marka hore erayada aan aqriyo dib aan sharxaadooda dib u soo qaato. Wing or blink, mad or crazy, village, district, post, prod, wearer, diverse, properly, respect, trouble, hardship time, imitate, pretend, pardon, wish, hope, swim, divine or sing, polite, impolite, greed, decision, surprise, amazing, vulnerable, rude. Waa 24 eray marka haddaan mid isu dul taago erayga koowaad waa wing ama slash meesha u dhaxayso ama oo la jeedo blink. Wing iyo blink waxaa loo jeedaa ama waxaa laga wadaa waa iljibin sidan oo kale iljibin sawirka horta kaaga muuqda sidan oo kale ayaa waxaa la yidhaahdaa iljibin. erayga labaad waa ayagana laba eray oo isku macno ah mad ama crazy. Mad ama crazy waxa weeyaan waa waali. Yes, waali weeye. erayga saddexaad isna waxa weeyaa waa village. Village waa xaafad. Village bad u dhawaaqaysaa. erayga afaraad district weeye. District waxa weeyaan waa degmo. Degmo weeye. District. Which district are you live in Malaysia? degmadeed ku noosha. erayga shanaad waxa weeyaan waa post ama prod. waa laba eray oo isku macno ah. Post ama prod waxa weeyaan waa faan. I am proud of you. Anigu waan kugu faanaa adig. Anigu proud of you. Adigu waan kugu faanaa marka leedahay. erayga lixaad waxa weeyaan waa wear. Wear waa dhar xirasho marka qofka dhar xirasho uu isticmaalayo verbkan ayuu isticmaalayaa. Wear waa xirasho. erayga toddobaad waxa weeyaan waa diverse. Diverse waa free. Diverse free weeye free. Freenka caadiga ah weeye oo ninka ragga markuu qof dumar furayo eraygan baa ingiriiska waxaa lagu yidhaha free. Diverse weeye. erayga sideedaad waxa weeyaan waa properly. Properly weeye waa si quman. يعني si quman. You have to stand in front of me properly when you wanted to make me a practice. waa in aad si quman u istaagtaa horteeda marka aad doonaysid in aad ila qaadatid wada sheekaysi ama practice na ila samaysid markaa leedahay kale marka eraygan properly waa si quman. Yes, stand up properly u istaag si quman. erayga sagaalaad waxa weeyaan respect. erayga respect waxa weeyaan waa xishmad ama qof markaa xishmeynaysa eray xishmadeed. xishmad waxaa lagu yidhaahdaa English respect baa loo isticmaalaa. Respect baa loo isticmaalaa. waa tahay erayga tobanaad waa trouble. Trouble waxa weeyaan dhibaato. Trouble. There is trouble over there. dhibaato ayaa halkaa ka jira marka leedahay kale. Trouble waa dhibaato. erayga 11aad waa hardship time. Hardship time erayga hard kaligiis waa adag.
hardship time ka israacdo intaa waxaa weeyaan waa xili adag ama waqti adag yes marka leedahay marka xili adag baa lagu jiraa oo kale waad isticmaalaysaa ama anigu xili yani waqti adag baan ku jiraa yani xaalad adag baan ku suganahay marka leedahay hardship time wadanka hadda xaalad adag buu maraya marka leedahay yes the situation of this country is hardship time bale xaaladda wadankani way adag tahay marka aad leedahay kale weey ereyga 12aad waa ayagana laba erey oo isku macna imitate iyo pretend imitate iyo slash ujeeda soo ereyga slash ama weeye macna ereygan waa isla macna marka leedahay imitate ama pretend waxa loo jeedaa marka waa iska dhigid weey ama iska yeelid marka leedahay oo kale maxaad iska dhigaysaa qof aadan ahayn why do you pretend like a person you are not maxaa iska dhigaysaa qof aadan ahayn marka leedahay oo kale isticmaal kartaa ereyga 13aad waxa weeyaan pardon waa afwan marka leedahay qof ereyga 14aad waa wish ama hope waa isla macno oo waxa weeyaan waa rajo ma rajo weey ereyga 15aadna waxa weeye swim waa dabaasha badda weeyna ama webiga marka dabaasha ereyga dabaal af English waa swim luqadda English ereyga 16aad waxa weeyaan waa diving ama sinking waa laba erey iyagana isku macno ah waxa weeyaan waa quusid marka qofku uu biyaha uu dabaalanayo uu hoos u galo oo hoos u quus ayaa waxa la yiraahdaa diving ama sinking ereyga 17aad waa polite waxa weeyaan waa akhlaaq you are a polite person adigu waxaa tahay qof akhlaaq impolite waa cagsigeeda waxa weeyaan ereyga 18aad impolite waxa weeyaan waa akhlaaq daro you are impolite you are impolite person adigu waxaa tahay qof aan akhlaaq lahayn markaad macna dhehayso kale waxaa leedahay you are impolite person ereyga 19aad waxa weeyaan waa greet salaan weey yes greet waa salaan I'm greeting you oo salaamaya I am greeting you wa idin salaamayaan waa leedahay ereyga you ayaa wuxuu yahay ereyga you mufradna waa loo isticmaalaa oo keli jamacna waa loo isticmaalaa oo wadar waa loo isticmaalaa marka greet waa salaan ereyga 20aad waxa weeye decision waxa weeye waa go'aan did you take that decision go'aanka miyaa qaadatay yes I took it waan qaatay marka leedahay ereyga 21aad waxa weeyaan surprise waxa weeyaan waa la yaab amazing ereyga 22aad waxa weeyaan amazing this is amazing really tani waa cajiib marka leedahay this is amazing really dhab ahaantii midani waa cajiib had leedahay ereyga 23aad waa vulnerable waa dayacaad iyo dayacan ereygan waa dayacnaan marka verb dayacnaan ay weey vulnerable maqsid waa dayacan ereyga 24aadna waxa weeyaan rude wuxuu la macno yahay waa akhlaaq darro impolite way rude waxa weeyaan waa akhlaaq darro way ama edeb darro magarat waa tahay 24ka erey baanu baranay inta aynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono hadda waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaadiin السلام عليكم